mid ka mid ah beelaha dega dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan beesha Jidle ayaa maanta taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka dadban ka oo ahaa in doorashada laga joojiyo laba musharax oo horey ugu dagaalamay howlka doorashooyinka ee magaalada Jowhar xilli ay socotay doorashada musharaxiinta dagaalantay. kulanka kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha Jidle. go'aankina waa helnay ujeedadayna waxay ahayd markiin go'aan helna inaan doorashadayna iyo kursigayna iyo si xalaal oo cadaalad inaan ku helno dhibaatadii iyo dawladda aan ka sugayno go'aankay gaartay waa ku faraxsanahay waa ogolnahay waxay noqotay go'aanka duu soo baxay labadii musharax in la kansalo waxaan rabnaa erga cusubna waa qoranay waa la iimaanaynaa waaskina wuu joogaa anoo nabadoonana waa garab taaganahay waxaan codsanaynaa oo ta'kiidinaynaa si dhibaato dambe aysan u dhicin labadii musharax oo sharxaneed oo beesha u sharxaneed maadaama ay dhibaato ka dhaxdhacday oo dil ka dhacay oo dhib ka dhacay ergadina ay laba meel ku kala jirto waxaan codsanaynaa dawladda Hirshabelle madaxdu wax ka gasho dadka nabadgelyada qaabilsan si doorashadaas xalaal ay ugu dhacdo in go'aan degdeg laga soo saaro labada musharax ergada waliba dhibaato fara badan ma yeelan karto si tartiib ah loo bixi karaa inkastoo iyadana meesha aan loogu imaan karin ilaa kuwa kale laga keeno dawladda waxaan ka codsanaynaa si dhibaato iyo qalalaasa dambe u dhicin kursigayadana uusan u laalmin 24 saacadood in looga saaro labadaas musharax go'aankii ay soo gaartay guddiga doorashooyinka dadban go'aankii ay soo gaareen waan ku faraxsanahay go'aan fiican oo sharaf loo ahay haddii go'aankii la gaaray weli way socotaa musharaxiintii hore abaabulkoodii weli wuu jira guryaha lagu kala xariisan yahay beriyaan gelina saadaman ergadayda kashana weli warku wuu iska badan yahay codsanaynaa dawladda Hirshabelle iyo mas'uuliyiinta in labadii ruux oo musharax ahayd laga saaro taasaan ta'kiidinaynaa oo cuslaynayna oo adkaynaynaa odayaasha ay u sheegeen waan aqbalnay go'aanka dawladda ka soo baxay mar kale iyo mar saddexaad waan aqbalnay ha xumaad ama ha saxnaada waan aqbalnay beesha meesha iskugu timid oo ka hadlayso go'aankii ka soo baxay dawladda guddiga federaalka doorashooyinka dadban waan taageersan mudane Cumar Dhagey gudoomiye Cumar Dhagey go'aankuu soo saaray oo waana soo gaaray go'aankiina waa kan waana ku faraxsanahay waxaan rabnaa go'aankii si uu soo baxay inuu u hirgalo labadii la kansalay iyo ergadoodii magaalada ay ka baxaan waxaan codsanayaa dawladda Hirshabelle iyo maamulkeeda in ay arintan ugu taageeraan go'aanka soo baxay guddiga doorashooyinka annagana aan qaadanay. Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.